goortuu yimaado inuu qaado dalkiisa kuwa quusan oo nadiifsan oo lagu mayray dhiigiisa sida xidig bay u nuurayaan waa warkiisa jannada farxad badan buna siiyey nolol daa'imista magacayga waxaa la yidhaahdaa Sheena Gaabow waxaan deganaa waddanka Ingiriiska waxaan ahay nin Soomaaliyeed oo Masiixi ah ama Christian sida u taqaanaanba waxaan idin leeyahay idinka codsanayaa rabbiga idinkaga baryayaa inaad Masiixa u timaadaan Masiixa aad soo raacdaan Masiixa wuxuu yiri waxaan ahay jidka waxaan ahay runta waxaan ahay nolosha jidka lama jiro aan ahayn ka Masiixa Masiixiyadu waa badbaado u kaaliya badbaadada si aan dhamaantaanba meesha rabbi uu noogu tagalay aan u deganaana u joogno asina aan la joogno jecel uu noo qabo daraada ayuu noo doortay uu noo badbaadiyay ee u kaaliya Masiixa walaalaha Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaanba waana mahadsantiin waxaan ahay waxa la yiraahdaa Faadumo waxaan ahay gabar Soomaali ku dhalatay oo Masiixad ah iminkana waxaan deganahay France waxaan qaatay Masiixnimada muddo oo iminka ka dambeysay 14 sano marka inta waan badbaaday oo waan helay maanta badbaada Ciise Masiixi marka waxaan rajaynayaa dadkeena Soomaaliya oo inta walaalaha maanta videogaas eeganayo inuu maaragtay isku dayo inuu Bible-ka akhriyo oo arko xaqa iyo jidka iyo nolosha oo runta ah waayo meesha kaliya ku badbaadayno oo runta waa Ciise Masiixi kan nabadda laga helayno waa asaga marka waxaan u rajaynayaa dadkeena Soomaalida ay meesha joogaanba inay gartaan in Ciise Masiixi kaliya idin badbaadin karo oo nabadna idin siin karo marka waxaan u rajaynayaa dadkeena Soomaaliya meesha waddankeena inuu helo nabad iyo jacayl badan tani aan u baahanahay tan maanta nijijibinayso meel walba naga burburisay waa jacayl la'aanta iyo nabad la'aanta waxaana laga heli karayaa Ciise Masiixi magacayga waa Maria waxaan ahay Somali Christian waxaan rabbiga qaatay 14 sano ka hor waxaan deganahay waddanka Norway Masiixi waa badbaadada waa nolosha waa iftiinka wadada kaliya oo nolosha weligeed ka heli kartid rabbiga oo kaaliya magacayga waxa la yiraahdaa Michael waxaan ahay Somali Christian Masiixi waxaan deganahay dalka Talyaaniga Ciise Masiixi waxaan ugu talagalaynaa marxatiga furo waa rabbigayga ilaaha nool وانا إله أقول يا دكتور هاي دوك كتير. سلام بيدك السلامي مقعي وحلا هذا أمون وحن دقنا هاي ودن كالنرويج فرحت بان كلام السياحة يدقنا شو ينور القبو وحن كانت درينا إن صارنا هاي شيء سحسن إن درسنا هاي إن رب لهاد ليه أو يمق ليه مسيح وحو آد وجو حد لي أو آد وجو dadka ku dardaarmiyay inay qof kasta jaarkiisa jeclaado inuu isagu inay dadku isu jeclaadaan sidoo isagu dadka u jeclaa hadii aynu qof kasta dad fikrad qof kasta uu jaarkiisa jeclaan lahaa adduunkan dagaal muu jireen wadankeena waxayna kala wada fadhiyay wax weeye dagaal marka qofkii nabad doonayo Masiixa qalbigaaga u fur حتى dad Bible-kun akhrido adigoon qalbigaaga furnayn waad arki doontaa waxaan ku hadlayno رب هيدا سو هديو أمانة 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 سوحتي أمانة ربتي أمانة هللويا عيسى مسيح أمانة وحالو هسيجا بدبريهنا وحالو هسيجا بدبريهنا
أمانة صبحتي أمانة قلبتي أمانة عيسى مسيح أمانة وحانو هسنا بدرينا وحانو هسنا بدرينا ملك سجودنا أمانة صبحتي أمانة قلبتي أمانة عيسى مسيح aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Simon Saalax waxaan ahay nin Soomaali ah waxaan aaminsanahay diinta Masiixiga Ciise inuu yahay badbaadiyahayga Ciise wuxuu helay aniga oo nin dhalinyar ah wuxuu iga soo saaray nolol aan ku jiray oo mugdi ah markaan isaga helayna waxaan helay iftiin maxaa yeelay isagu wuxuu yiri anigu waxaan ahay iftiinka dunida kii soo raacana ma lumi doono sidaas darteed waxaan qirayaa in Ciise uu yahay badbaadiyahayga walaalaha halkan naga daawanayo waxaan cadeysanayaa maanta ama nii marqaati furaya inaan ahay qof Kristaan ah oo Soomaali ah magaceygana waxaa la Raxmo Maxamed Aadan oo ku nool wadanka Finland waxaan sheegay inaan magac aan qatay Masiixa aan ku helay nabadda weligeed ah magacayga waxaa la yiraahdaa Nasr Cabdisalaam waxaan deganahay Sweden magaalada Eslöv waxaan ahay Soomaali Masiixi waxaan qaatay Masiixiyada 15 sano ka hor Ciise waa badbaadiyahayga waa ilaahayga nool Soomaalina waxaan u baryayaa inay wada qaataan Masiix magacaygu waa Cabdiraxkiin Maxamed waxaan deganahay wadanka Finland waxaan halkan ka qirayaa inaan ahay Soomaali Masiixi kuna qanacsan aadna ugu faraxsan diintiisa kuna faraxsan sidoo kale badbaadiyihiisa Ciise Masiix rabbiga jannada ku jira anigu magacaygu waxa waaye Ruqyo Maxamed waxaan deganahay London Ingiriiska waxaan halkan ka marqaati furaa inaan raacsanahay diinta Masiixiga oo aan aaminsanahay Ciise Masiix waxaan rajaynaa walaalahay Soomaaliyeedna sidoo kale inay Ilaahay ku soo toosiyo jidka saxa ah ee aaminaan Ciise Masiix goortu yimaado inuu qaado dalkiisa kuwa uusan oo nadiifsan oo lagu mayray dhiigiisa sida xidig bay u nuurayaan waa warkiisa jannada farxad badan buna siiyey nolol daa'imista magacayga waa Yuusuf waxaan deganahay Norway waxaan ahay Soomaali Masiixi Masiixu waa badbaadiyahayga waa Ilaaha runta ah wuxuuna kitaabkiisa ku dhahayaa qof waliba aniga i rumaysata ma lumi doonto laakiin waxay lahaan doontaa nolosha weligeed Soomaalina waxaan ugu duceynayaa inuu Masiixa soo raaco